الله تعالى وبركاته كل تو عنا ونكسن أو حاجنا كأمرت إيقوة سحكيجا قاليجا موسى بروفيسور موسى موسى معناها وحنقوليه هاي والله شكرا بدن أيام كوسو دوينيا ما دام معناها نوغي مادي عاصمتي سوماليا مقدشو أصحابت محادي اللي تعاون محاو هيسا محاب برنامج هيسا. السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده ولالكي هذا ومحسن تهي ما شاء الله هرتا غير قدو ودد قلبي ونكسن دد قلبي في عن إذا ذاك لا تورته ما شاء الله ولالكي يسوق رح بدنا يسوي دويسكو يسوي نمد لك وابي كرمان وايدتك نشان دك إنه دد قلبي فرن وقلبي قوي حب هاي ما شاء الله وادد سودوين يقانو qaybka soo dhaweyntan ka soo baxay marka waxaa rajayn lahay sida hadda ay ku socdaan horumarka ay wadaan horumarka wanaagsan in ay sii wadaan waayo qofka markuu horumar gaarayo ama horumar uu wato simbar macarad u yeeshtaa marka waxaan leeyahay reer Gado horumarka aad sameyseen horumar wanaagsan weeye waayo markii magaalada aan imaaday waxaan arkay bilicda magaalada oo qurux badan haddana waxaan sii jeclaan lahay bilicda magaalada sida hadda ay tahay si ka duwan inay sii noqoto ما شاء الله هرت هذا وما سنتهاي وحن كلية هاي هرت دكمة كسودو ما دام دكمة معناها والدين تي دقنين لكن هذيك بدنا وبدنا تاع مقدشة وبدنا تاع يو أصحابته ما دام عاصمة كي ما دين كستو عاصمة آد نوغ رئيسو وحيال بدنا نوغ مرتين بالعاو محا تعلم تاعد وقتل قش أصحابته أو إن لحوا تاجس أو جديد maxaa ugu talagashay asxaabtan kulay waa wax leeyihiin Muuse oo soo fadhiistay kulay wax loo gamaa ilig baa dhaca dooro way wax loo gamaa leeyihiin dadkan marka maxaa u haysaa dadkan daawada taagay kulay kuwa waxa u jeeda gees indha farq waay marka maxaa u haysaa dadkan horta ani ahaan dadka taalantiga leh oo waxaan jeclaa horta inaan dhiirigelin تهذا كله تورت ولا الكيجا نيك كليه هذا أو يوتيوبر كأ قبل كجدو خاصة دقمة اللوق ولا الكيجا محمد يخ شرف عزي كلامه الله كسيه ما شاء الله مركا وحسيج على الله ولا الكيجا عن كله لاي إن هر مركا خرج أوسي وديت أو دتك معارضكو وهذا ندك وديجن ويجونكم معارض وجرا معارض كسب على جروا أو كل سكرتها أمسون waayo hebel asaan waxa soo laga tagaa waxa adiga nafsadaada isku balbagaramsa sidii aad horumar u gaari kartaa horumarkaan mid ka wanaagsan aad u gaari kartaa laakiin sadaa dhayd maanta hebel asaan ii dhahay hebel lurkiisa daba ka wax badan aqaalo ma wax badan aqabsaleed aka dhamaana waana had wax ku dhilahay talentigaaga hor u sii wado horta ma sha Allah anoo muqdisho jooga waxaan idinka arkay rawaayad qurux badan aad soo dhigteen ما شاء الله روايدين ومد بدن ولا رياقدي صافي لها يوتيوب كينا سبسكرايب في عنا هستين وحكسي جعلان لها دمان بين مقدشو إنه إذا كوا داونا ينسى جعلاي دمان توضح دي لها ولكن محمد يخ يوتيوبر الصوماليات ماليزيا هدا جوكتيت إن كينيا هدا جوكتيت أوغندا إلهي كوما دارنا دي قبل هذا كله هدا جوكتيت خاصة مقدشو هدا جوكتيت يوتيوبر آتهاي بس فنان آتهاي ولكن ما عندك ربيتك كاسين كرتين اللي هو ميديك ودي كروا حيدا ديلا يوتيوب كادين توم مراي إن كرر ولا بس على هذا يوتيوب كروسي كوا لكن أنت سعيد رجال لا ويانيجا هذا البدن نسكم في عنين كستو أكامل مركوري ماذا حشوتكي وزايد جاي مركولالكي واحد ديلا تعلمت في عنها استا ولو حسيت على الله رواية درات أديكتي رواية كمية هنا أنا أكسر مقداد بالله ميدين إن شاء الله ما شاء الله رنتا واي أرتو روايدي waxay noqotay riwaayad oo macna jilaad fara badan ku jiraan jilaayasha magacyadooda ku sheeg naftirka waa adab qoslaay waxa waaye bakool hal jilaa ka jiraa hal jilaa ka helay oo jilaaga sir loo ajnabi in la jeclay magaciisa bakool la leeyahay magac oo khaasatan reergada uu yaqaan ajnabi uu yahay horta ninkaas شاطر إله وتيست ويا نين نرتا اسك قلبي فرن دمانتي نرتا انت رواية جلسي
wadad qalbi furan oo arkay waayo soo qaabka u jilaayo iyo qaabka uu sameynayo talent horta marka leedahay waxa wanaagsan inaad talentkaada soo muujin kartid laakiin adoo talent leh haddii isqarisid waxaa dhihi karaa qofkaas inuu nafsadiisa oo ibarka yahay waayo laakiin haddii talent leedahay soo bandhigtid bulshadan qofba wuxuu kusoo caanbaxaa hadda fiiri ninka matalan needaan yar tiktok aanka yaasiin needaan inuu nadaawan doono ama uu maqli doono waa sheeko kale umad si hadal hayaan tiimkaas horta aad baa u taageeraa waana wataa iyo gabadha ugu da'da yar labada gabdha ugu da'da muqdisho joogaan mudirise iyo salmo waa dadka kaliya faniya ah oo tiktok haystaan hadda tiim waa sheeko kale labada gabar oo kusoo birtay Siam iyo walaasheed Sajaan ay Saami laba ayagana dadka soo tarantigooda way soo bandhigeen waayo tarantii badan leeyihiin sidii Sadamkii oo kale Gaabo oo kale dad badan oo inta laga soo koobi karin King Jeste oo kale Happy oo kale waayo reer TikTok lama soo koobi karo dad shactir badan ku jiraan meel walba aad joogtid waxaa laga rabaa qof fani ah waxa doontaa horta sida khaasatan gobolka Gedo markii la Maxamed Deeq iyo walaalkii ajnabi bakoolsi u yaqaanaan laakiin magaciisa runta ummadda ay ku yaqaanaan khaasatan gobolka Gedo waa xawaa ajnabi masha Allah horta ninkaas waa jilaawiin oo kale iska arag waay markii aan arkay riwaayad soo qaabku u jilaayo wallahi qosol horta isku celin waay soo qosolay horta habeenkaas kaada xataa iga maarftay أنا فني هواي waxaan si dhiilaa walaalkayga duu maqlaayo oo uu daawanayo ana horumar wanaagsan normal kan mid ka wanaagsan inaa si waayo hadii aad niidis ka sii dijidaad inuu YouTube kama waxaan dadkan kuma daawanayo waayo dadkan qofba YouTube markuu soo galaayo wuxuu ku soo galaa waayo waxa lagaga baran karaa heerkan aad maanta gobolka aad joogto waxa laga yaabaa Brikamal inaa Muqdisho tagtid sarjeenaysid hamigaagu yahay Brikamal markaa Muqdisho tagtid ama adoo gobolka lagaga bartay hadda meel kale markaa tagtid hadda adoo aaladda mis camera lagaga bartay hadda meel kale tagtid haleekan ki YouTube ka aymo sida dar TikTok oo kale waa sheeko kale ninka idaan Yaasiin markii la arko ay kan waa sheeko kale mo marka waa ka waa dad fani horta way jiraan sida walaalkayga midka khaas ay daan umada la bixin shirwac boy sininta ka salaama waa ninkaas siin waa nin faniya madaxa ku bixin asaas hooyooyinka qaarada daawadiis waxay ku leeyihiin madaxa ku bixin asaas reer Muqdisho to dambiil wada oo maani waxay leedahay taqaana washarwaco wiilkaygii waxa rabaa dambiishan moos iyo cambe iyo waxaan ku wadaa madaxa in loo bixiyaan rabaa dambiil madaxa macnaha inay ii garato miyaa ma dambiish ma madaxa kan loo suubinaa sidii alaab kale ugu darsata video qost ugu dilay habeen dhan ku xeeshinay marka maya dambiisha xitaa madaxa u bixi waxay tahay mataqaana shirwac boy wax ku soo canbaxa waayo horta ma sha Allah waa nin farsamo yaqaan oo talenti aad u wanaagsan leh waayo horta ninkaas ma sha Allah waa nin gacantiisa ku kalsoon waayo markii ay dhahays maamada dambiishan madaxa ugu bixin dambiisha waxa loo sameeynaa si hadda aragteen baa fiirsteen amalina tunjiga oo muraayada lagu xiraayo gaar dameer la waxa sariir la saaraa horta ninkaas ma sha Allah talenti u leeyahay talentigiisana hor inuu si wada jeclaan lahayo waayo qof walba talentiga ku jiro adiga hadii daawanay talentiga ku jiro talentiga ina soo bandhigin karto isku day marka waxa idin dhilaay youtuberka walaalkeen Xamdiq maanta say sharafta Allah ku sharfo waxa jeclaan lahaa inta aad ahayst in ka badan sidii Maxamed Qadar oo kale inaa noqotid Maxamed Qadar hadda ma sha Allah Gool FM tabiyaha khaaska reer Muqdisho ahaysiyaan waa sina magac koow ku soo canbay waxa wax kale الله إلهي والنوال إنسان ما عسك سو عم بحسين ساس عمر على راعين إن تعلمت يا جار وسي ودي ذلك لا وسي جبرت أنت سقبله runta waa horta waxaan rabaa inaan sii guda gala saxabtayda tiim loo ganaane hadayte sheekan kuwada sheekada waxaa waaye kow jilaasha madaxdooda Mr. Qumbo waa aniga kula baada bakoola ku xigo oonka ku xigo qaybaha kala qofkii afraad oo rag aad wax u taqaanaa aflo u taqaanaa laakiin anaga Manyaara u bixinay Manyaara magac horta ma sha Allah horta dad faniyatihiin magaca weli aan maqlan waayo Manyaara ma sha Allah horta soo maleynaa hindi ma ka keentay Pakistan ya ma aqaan magacaas horta meesha ka keentay Manyaara macnaha ana wala baa kulli wili waxa ku sii qosli doontaa dhanka gabdhaha 6 gabdhood waaye tan ugu horeysa gabdhaha dumarka ay qabilsan tahay ay faa weys Allah ay faa weys
Fire away ismaada. Fire Aways. Midda labaad waxaa la dhahaa iFi Dambiil iyo iFi Aways. Horta magacada fani horta meesha aan uga jeedaa. Horta magaca koowaad wuxuu ahay xagga ragga Manyara. Haddana waxay tahay Qumbo. Horta magacyo horta isku aadan oo haddana ay ummadda farxad gelin kara horta. waayo hadda fiiri qofka markaa dhahid Bakool magaca hadda marka uu fiiriyo qofkaas wuxuu leeyahay Bakool gobol waa khaasatan dhankan Beedhabo iyo dhulkaas inta ama Jilib iyo dhankaas loo qaaday magaca kale laakiin Manyara magaca horta oo aan dhihi karin Soomaaliya xataa inuusan iyo oo idinka ahayn disteen uu yahay teeda kale ay faa'iidin dil horta magacyo oo meeshan ugu jeeda la yaab leh oo dadka dhan oo hadda badanaa dadka markay inta badan ay qoslaan waayo waxaa la raadsan meeshan waxa jirto muhiimadu waxay tahay qofkan si ku farxad gelin kartaa ama oo qoslaysiin kartaa marka la horta magacyadan horta kuwa kale hadda soo socdaaba ka sii daran Soomaaliya saddex magacada aan maqlay waa saddex magacyo kala daran kuwa kale soo socda waxay noqon doonaan asaga warsuugeen iFi Aways iFi baashi Dambiil waxaa kala jirtaa Batulo Banikala jirto oo aad u qosol badan. Batulo Banikala lahaa waxay qaabilsan tahay qaybta oo waxay qaabilsan tahay qayaanada. Batulo Banikala lahaa qayaanada ay qaabilsan tahay riwaayadii sirnaageed ay aad iyo aad iidi ugu jirtay. waxay sameynayeen badrooniga qayaani anigoo oo badrooniga shaqaalihiisa ahaaya waxaan iskaga dhigaa nin oo macnaha iskale shirkadda dhan. badrooniga aflo wuxuu sameynaa Mr. Manyara islaanta ii karkeena anoo macnaha shamiinta qasaay ii karkeena sirnaageed lama sargaara la qayaano waa asay qayaani anay qayaani dadka dhan afka dhulku gelin abo aflo maal qabeen dibida markuu maalkiis dhan dhulka ku daray al ulta bana isoo noqon Batulo Banikala lahaa laakiin magaceeda rasmiga Farxiyo aadan ayaa la yiraahdaa Farxiyo Cadeey laakiin dadka waxay ka saayaan oo maleeyahay Farxiyo Shambari laakiin Batulo Banikala waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinaa riwaayadii u qosolka badneed qaybteeda ugu qatarsaneed markii aan iidi kursiga isla fadhinay riwaayadaas ina fiirsatay moogi riwaayad qatar ahayd kursigan oo isla fadhina oo aniga aan iska dhigaa nin shaqaalihii ku dhex jiro ayaa aflow meeshan imaanay ajnabi ay dhale oo Bakool ay dhale kaamirada hay lagu igu qabtino riwaayad soo fiirsatay wala horta riwaayad hadda ay sheegayso horta fiirsan laakiinsa YouTube koota in aan ku laabto oo ruuxi riwaayado dib ii dhaafay aan fiirsado horta magaca hadda ugu dambeeyay Batulo Banikala horta Soomaali horta anaga hadaan nahay Banikala waxaan u naqaanaa markii oo qofka la sawiro waagi hore Banikala sawirka qofka markii la sawiro mid kala socda Banikala loo yaqaan haddana waayo erey fani uu noqday Batulo Banikala horta magacyo aad u wanaagsan haddana oo ummadda ka qoslinaay horta riwaayadihiina waxay tahay riwaayado qosol badan maasha Allah waxaa idin dhihi lahay talantiga hadda ay siin in aad sii laba jibartaan hore aad u sii wadaan waayo heerka ka wanaagsan qofka markuu gaaro in loo hambaliyo hada maanta na daawanayo qofkan walaalka waaye horbarkiisa wixii ka qaldan oo u sheegi kartaa wixii u saxan waxaa dhihi kartaa saaxiib talantiga leedahay hore u soco laakiin qofka walaalka hadda niidi ka dishid waa dhahdeed neo talent maliyid isaan waayo qofka horta meesha isku qudadeen lahay waayo waxaa wanaagsan inaad dhahdeed meeshaas ka qaldan iska saxib qofka walaalka ugu dareemi karaa wuu nasixi karaa laakiin haddii qofka walaalka wixii qalad ku fiirsatid ama mucaaradnimo ku samaysid waxay soo kordhinaysa malaan waxaa idin dhihi lahay dhammaan intaadana daawanayso YouTube-ka walaalkeena Maxamed Deeq shaashada la idiin soo saari doona subscribe-ka khaasatan reer Muqdisho reer Nairobi dhammaan inta ummada islaam Soomaaliyeed waxaa idin leenahay walaalkiina horumar maanta idinka gaarsiin karo idinkaana kor u qaadi karo idinkaana talentiga hadda u haayo wanaagiisa idinka ka tali kartiin waayo qofkan walaalka maanta dadaal iyo juhd wuxuu u bixinaa soo adiga kaaga farxin lahaa markaa qosolsiin lahaa qofkii maanta adoo og haddii aad caysid ama wax ka sheegtid horta baa laga wanaagsan yahay waayo weynaadaa wanaagsadaa hore loo dhahay marka qofka walaalka waxaa loo rabaa inaad talentigiisa kula garab geshid aadhadeed walaal saan mee hore u soco waxaas kaa qaldan iska sax
qofka walaalka maanta marka dhiirigelisid oo aad aadinayo talentia waa leedahay barnaamijkaada awadid ummaddu fani aad tahay waa ka qoslaysaa horu soo caddeedhada qofka walaalka dadaalka u waday uu soo leebi jibaara laakiin sidee dhaadinayo youtube-kaada inuu ku kalkacasuun dad adeeg kaa caansanaa youtuberada kala kici waay qalad ay kugu noqoneen waay qofka walaalka niyadu iska dilaa qofka walaalka niyada u dhisi kartaa haddaa niyadu dhistid horumarkiisa uu soo leebi jibaara laakiinse mar haddaa niyad ka dishid eber waay waxaa idin dhilahay dhammaan intana daawanayso khaasatan reer gobolka Gedo khaasatan degmada Luuq waxaa idin leeyahay walaalkiina inta maanta degmada Luuq ku sugan ama ku xusan intaas hadda subscribe oo saartaan walaa waxaa aaminsanahay dadka kale oo gobolada kale inay u saari karaan marka waxaa idin leeyahay walaalkiina saa ku garab qaban leedeen wuxuu idinka sugayaa waa inaad subscribe saartaan youtube-kiisa ala socotaan waayo gaalba subscribe oo saaraysiin walaalkiina salaamkana waxa wanaagsan inaad subscribe saartaan waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu maasha allah soo dhawo aad iyo aad aan kuu soo dhaweynayaa sida quruxda badan aan usoo booqatay waxaan ku leeyahay inaad anagana sidoo kale aad iyo aad aan kuugu mahad celinaynaa dhammaan anagoo ku hadlayaa afka Team Luuq Ganaane waxaan leenahay kusoo dhaweynaynaa anagoo asxaabtayda iyo dhammaan afkooda ku hadlaya maadaama oo ereyadii dambe aan kuu sheegayo magacyadii aad weli waxaa aan kuu sheegana jirta 6 waaye 3 lee kuu sheegay 3 kale weli ma kuu tilmaamin horta saddexda horta hadda ay sheegtay saddexda soo socota horta waxaa ogsoonahay saddexda soo socota kuwan inay ka qosol badan yihiin waayo aniga haddana waxaa ahay dadka camera markay arkaan zaaid ku xishoodo waayo camera horta ma kasoo muuqdo camera hadda marka muuqanayo aniga shakhsi ahaanteyda isku sawiro ma ogiye dadka waxaan ahay oo camerada badan aan neceb teeda kaleeto hadda ereya aad ku hadda hadalada magacyada ay sheegtay kuwaas kuwa ka daran inaad soo wadid oo fani ah waayo aniga reero qosol lamiye qosolka badan waa qaraab goysan faad marka waxaan ku dhihi lahay maasha allah kaba soo qad adigoo ii sheegtay waayo saanta filaayo waqtigii salaada inaa joogna aan amisanahay marka maasha allah soo dhaweynta Team Luuq ay soo dhaweysiin waa idin mahad celinayaa kaba soo qad dadka tiimka inta kala maqan waxay ila mid tahay waayo hal qof dib soo dhaweeyo dadka kale ayagoo kusoo dhaweeyeen marka mahadsantihiin khaasatan reer Gedo dhammaan waayo aniga degmadan waa deegaankayga waayo aniga asaga ahlaan waxaa ku dhashtay magaalada Muqdisho waayo hooyo aaba meel ku jiraan kama marin kartid saafilaa waa intan hooyo aaba ay joogo maasha allah ayagana laha barakeeyo iyaga wax walba wanaag meel walba waxbarasho ujeedid daal ila soo gaaray alxamdulillah shukrillah maantana waa kana waayo afraxsanahay waalidkayga la joogaa waxbarashadeedana heerkii loogu talgalay baa dhameeyay alxamdulillah shukrillah heer jaamacadeedta maasha allah alxamdulillah shukrillah hadana isku kalsoonahay waalidkaygana waayo waalid marka waxaan jeclahay dacdooda dartoodaan tuumaaday marka waxaan dhihi lahaa Team Luuq mahadsantihiin soo dhaweynta ay soo dhaweysiin waan idinka qabaa waxaa idin leeyahay hadda anigoo wareysi intaad aragteen laakiin waxaa fili doonaa riwaayadaha dambe aad soo wadiin inaan kasoo noqon doono hadduu ilaah yirahdo insha allah maasha allah saxaabay waxaan idin leenahay riwaayadda dambe soo socoto magaceeda waxaa la yidhaahdaa ha ku degdegin ka fiirsaa la lahaa laankeeda wuu diyaarsan yahay ha ku degdegin ka fiirso macnaha doonaha waxay soo doonanay adeeg aw bakol mani koole isagana wuxuu suubinaa naagna ma arki kara baatigaa dhibaaya wuu ku dhacaa cabaar mees la istaagan yahay lacagta adeega asaa laga qaadaa lagu tumo riwaayaddaas waa soo socotaa qaybta dambe oo macnaha waanada iyo qaybta dambe oo macnaha legedka musuq waa ku jira isagana qaybta saxaabay waan kusoo dari doonaa dacleydmo waxaan leeyahay ani iyo saaxiibkayga Professor Muuse Cadde insha allah waxaan leenahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu